سأوجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. إلهي الرالي هانشيس وحكوشرا والد كالرالي هانشيس عرض الله نوحي كترتا عرض والد كبالي والد كهدد كعريسيسو وحيودو دينا ربي كعريسيس سيدا أوجد وحو نبغو التلمامي عليه الصلاة والسلام إنك كد داش وحينو التلمامي إنا مركب والدك هبار كيس نبغو عليه الصلاة والسلام وحتى المامي حديثك أصحدي صدح بريو حقا ليلة ما عليو وحكم إذا دعوة الوالد رواياتك قاركودنا دعوة الوالد على ولده أي المامي هبارك وهبارو والد المهيسة وقرعية سيبا هويوينك وحن لا يفكي إنه هبارك براني إن كارك وقرعي هبار بعض قبطادية وحكن هبار بو قبيهم إن بدنا الصوماليان وتاقلا أنا إسلامها كويدا هبار بعض قبطان هبار كي لوgu duceeyay bay qabaan idan waxa fiican qofka muslimka ah isaguna inuu wax fiican ku hadlo inaanu erayada xun carabkiisa barin saawgeed buu nabigu wuxuu leeyahay habaarka waalidku wuu dhacaa waxaan leenahay waxa ka mid ah waxyaabaha waalidka loogu samafalayo inaad asxaabtii waalidka isaga daaye ciddu la saaxiibka inaad xidhiidhiso haddaad ogtay cid aabbaha ama hooyada ay ixtiraami jirto saaxiib ay laahay inaad xidhiidhiso cabdillaahi ibnu cumar iyo ardaygiisii cabdillaahi ibnu diinaar taabicigii la odhan jiray iyagoo xaramka yimoo ka noqday dhexda mulmaraya ayaa nin reer baadiyii ku soo baxay dabeetana ibnu cumar baa dameeruu fushanaana siiyey cumaamadiisiina u furay cabdillaahi ibnu diinaar baa wuxuu yidhi ibnu cumarow ninka kani waa reer baadiyuna wax yar bay ku qancaaneen haddaad cumaamadda siisay maxaa dameerka ugu dartay baa dameerkaaga iska fuushanaatay wuxuu ku yidhi ninka kana aabbihii ahlu wuddu cumar buu ahaa aabbahay saaxiibkii buu ahaa markaa aabbahay dadkuu jeclaaya saaxiibka la ahaa mar hadduu wiilkan dhalay saas baan ku xidhiidhinayaa buu tilmaamaya silatulwaalidi ahlu wuddu abiih nabigaa yidhi ina abar albir sama waxa ugu fiican xidhiidhka uu waalidku xidhiidhiyo dadkii waalidkii jeclaayeen waalidka ama aabbaha ha noqdo ama hooyada ha noqdee intay xidhiidhin jireen inaad xidhiidhiso qaababka loogu samafalo waxaa ka mid ah inaad ilaahay baryadiisa u badisid nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay camalka bini aadamku inuu go'o ilaa iyo 3 mooyaane saddexdaana waxaa ka mid ahaa waladin saalixin yadcu lahu wiil saalixa oo u soo duceeya bale nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa jannada waalid ku jira ayaa darajadii uu lahaa kor looga qaadaa markaasuu yidhaahdaa annaa lihaada ilaahay intan maan shaqaysana xaggay ka timi fayuqaalu biistigfaari waladika lak waa dembi dhaafku ilmahaa dhashay ilaahay uu kuu soo weydiinayay subxaanahu wa tacaala aabbaha hadduu nool yihiyo hooyada hadday nool yihiin iyo hadday dhinteenba ilaahay u bari hadday nool yihiin iyo hadday dhinteenba ilaahay u bari wixii aad cibaado u samayn kartana u sameeye sharcigu baneeyey nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay gabadh baa waxay tidhi ilaahay rasuulkiisa iyo hooyaday jaariyad baan siiyey dabeetana way dhimatay jaariyaddii waa tan odday igu soo noqotay maxaan sameeyaa waxay ka cabsatay in sadaqada laga aqbali waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi adiguna ajarkaagii waad heshay dhaxalkana ilaahay baa kuugu soo celiyey qaado calaa kulli xaal waxay jeclayd inay xajta buu yidhi ka xaj waxaan ku soo koobayaa wixii cibaado sharcigu banneeyey taan sharcigu bannayn maaha wixii sharcigu banneeyey cibaadaana u samee sala allahuma calaa muxamadin wala aalihi wasaxbihi wasallam walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin